السلام عليكم دمانتين داوديال kusoo dhawaada cashir kooban oo aynu kaga hadli doono ebene farban iyo gegenverkeer waxaynu tilmaami doonaa ama aynu arki doonaa qaabka ugu fudud ee aynu u mari karno labadan calaamadood marka aynu aragno kusoo dhawaada dhammaantiin sawirkan halka inooga muuqda ama calaamadani waa calaamad aad ku garan karto ebene farban ama meesha loo yaqaan askari jiifa waa calaamadaas aad moodo buuraha marka waxay ka dhigan tahay ama macnaheedu tahay waa dariiqii caadiga ahaa oo aan toosnayn waa dariiq aan toosnayn oo jajable ama loo sameeyo mataqaanaa meel baabuurtu ay ka istaagto ama ay aayar u socoto hadda waxaynu arki doonaa muuqaal yar oo kooban oo tilmaamaya qaabka ugu sahlan ee ugu fudud ee aad ku mari karto meeshan oo kale dariiqan marka aad marayso waxa laga rabaa inaad markaad soo dhawaato speedka gaarigaaga aad u yareyso si aanay dhibaato kaaga iman gaariga taayiradiisa ama gaariga dhibaato kale soo gaarin isla markaa aad ka gudbaysana waxa laga rabaa inaad number 1 geliso ama geerka number 1 si tartiibana uga gudubto adiga oo aan xoog ugu soconayn ama aanad leebarka ama gaaska siinayn tartiib aad uga gudubto intaas ayaa laga rabaa marka aad meeshaas ka gudbayso haddii aad imtixaan ku marayso meeshana waxa laga rabaa inaad taxaddar gaar ah samayso si aanad imtixaanka ugu dhicin astaantani noo muuqata waxaynu ku soo qaadanay cashirkan ka horeeyay kaasi oo aynu kaga hadlaynay gegenverkeer iyo calaamado kale marka calaamadani waxay tilmaamaysaa in aad adigu ka leedahay wadadan cadaanka ah marka aad ku socoto falaadhan cadaanka ah marka aad ku socoto gaariga xagga casaanka ka imanaya adiga ugu xaq mudan adiga ayaa ka hormaraya meeshaas sida sawirkan inooga muuqata waxaad u jeedaan inay tahay meeshu meel yar oo cidhiidhi ah ama meel aanay laba baabuur ku kulmi karin ama aanay isku dhaafi karin saas darteed ayaa calaamadan loogu sameeyay si ay midkoodba mar u maro calaamadan waxaynu kusoo dhiganay cashirkii kan ka horeeyay waana gegenverkeer waxayna tilmaamaysaa in qofka ama gaariga u socda xagga calaamada cas uu sugayo gaariga ka imanaya xagga calaamada madow ama falaadha madow marka waa meeshaas yar sidaad u jeedaan waa meel aad u yar oo aanay laba baabuur iskaga gudbi karin ama aanay hal mar isdhaafi karin saas darteed ayaa calaamadan dhinacan loogu sameeyay dhinacan calaamadaas ayaa ku dhagan dhinaca kalena waxa ku dhagan calaamad casaan iyo cadaan oo dhinaca kale ee wadada kaga dhagan taasi oo u muuqata marka gaariga xagga madowga ka imanaya dhinaciisa kale ku dhagan oo si fiican ugu muuqata sida calaamadani adiga ay kuugu muuqato hadda marka labada midab iyo labada calaamadood qaabkay kala yihiin ayaa kala duwan calaamadan waa calaamada mamnuuca ah ee goobada ah casaanka saasaad ku garan kartaa si fudud ta kalena afar gees waa wax lagu ogol yahay muuqaalkanna waa meeshii aynu hadda soo sheeganay ee gegenverkeer waa meel aad u yar dariiqa halkaa ka muuqda ee sida dhigta ah ama sida arkada oo kale ah waa meel aanay labada baabuur hal mar aanay wada mari karin saas darteed ayaa calaamada loogu sameeyay gaarigu markuu xaggan ka gelayo waa inuu ka sugo ka kale ee xagga hore kasoo gelaya saas ayaa calaamada loogu kala nidaamiyay inuu marba midkood maro intaas ayaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago waa cashir kooban inta aynu ku kulmi doono cashirkan oo kale ah nabadgelyo